deegaankan Sarmaayo oo la aasaasay sanadkii 1969 wuxuu hoos tagaa degmada Taleex ee gobolka Sool isagoo u jira 90 kiiloomitir. deegaankani wuxuu hoos yimaado oo looga arrimiyo 4 tuulo oo kala ah Birta, Gubato, Damal Cirbiido iyo Bardaxamash, waxaana dadka ku nool deegaankan lagu qiyaasaa 18,000 kuwaas oo noloshoodu ku tiirsan tahay xoolaha nool. Sarmaayo oo ahayd dhul xoolo daaqsinta caan ku ahaa oo markii hore looga aroori jiray gobolada Nugaal iyo Sool ayaa ceelkii ugu horeeyay waxaa ka hirgeliyay nin la yiraahdo Cismaan Maxamuud Cali oo ahaa nin deegaanka u dhashay. ninkaasu halkan markii uu yimi wuxuu arkay dhulku inuu yahay dhul oomana oo beeka dheera. Sarmaayo meesha la baxdayna waa 3 mid waxa la yiraahdaa Sarmaan Afweyn, midna waxa la yiraahdaa Sarmaan Ciid, midna waxa la yiraahdaa Sarmaan Gabal. waa 3 Sarmaayo. Sarmaan Afweyn iyo Sarmaan Ciid meel u dhaxaysa ayuu yimi. nima buu la tashaday nimankii markaa wadanka xoolaha ku dhaqan jiray oo ay ilmaadeer tahay qaarkoodna walaalahaayeen. wuxuu ka warramay meeshan haddaynu ka sameeyno berkad oo aan berkad ka dhiso. adigu fikirka waa la isla qaatay, berkad buu ka qoday. Cismaan Garaad Maxamuud weeye, waa nin caan ah oo la yaqaano. labadii horta labada berkadood ayay Sarmaayo ahaan jirtay berigii hore. anigu waan ku garaadsaday 72 xilligii ololaha af Soomaaliga soo baxay oo 72 ahayd ayaa waxaa bilaabmay dadkii deegaanka ah inuu misna dadkii labadaani ku daydo oo haddii ay meeshii laga ay noqoto meel deegaana oo berkado laga qoto. berkadahaas wax dadka ku filan ma ay ahaan jirin. dadku Nugaal buu aroori jiray, wuxuu aroori jiray haddii ay idinkeeda leeyahay geelu wuxuu aroori jiray Nugaasha hoos ka cad iyo buu aadi jiray iyo dhiday iyo ceel la yiraahdo ama karamaantaas haddii ay idinkeeda ceelal karamaanta ku taala. horta Sarmaayo sidaasay deegaan ku noqotay. riigag baa hadda laga qoday 2 riig. anigu xilligaa marka aanu wadanka waan ka tagay ilaa adigu taariikhdu markay 81 ayaan wadankan anigu yar ka tagay. haddana waa deegaanka haddii aad aragtaan faraha weyne matooradii ilaahay haddii la idinkeeda leeyahay ganacsigii ilaahay waxbarashadii ilaahay wax walba xoolo dhaqataa bay ahaayeen. dad xoolo dhaqataa oo neefka caanaha waxay ka maalaan iyo cadka waxay qashaan mooyaane adigu yaani qotul duruudigu xilligii nooca u buux. Sarmaayo oo leh boqortooyo guuna iyo golo dhaqan oo adag waxay ka mid tahay deegaanada ugu amniga fiican gobolka Sool, waxaana hadda socda abaabulka ay madaxda dhaqanku ugu jiraan dhisidda golo deegaan oo dhammaystiran kaas oo qorshuhu yahay in ay dhawaan yeelato degmada Taleex ee gobolka Sool. boqortooyadii ka goday waxay ahayd Maxamuud Garaad, meeshii laga xukumi jiray bay ahayd. ilaa hadda sidii bay u dhisan tahay, ilaa dhowr iyo 14 garaad boqortooyo ay socotaa. haddii la idinkeeda leeyahay waxay leedahay waxa la yiraahdo arrimaha bulshada ka dhisan, waxay leedahay guddi khilaafaad bay leedahay, nin garbood bay leedahay. hadda may garatay waxay leedahay qaynuun yaaniga lagu kala hago dadka oo sharciga u degan oo ilaa heer garaad ilaa caaqil ilaa haddii la idinkeeda leeyahay. hadda may garatay waxaan aaminsanahay meesha tan hadday hesho yaaniga ay timada ka dhiman oo haddii la idinkeeda ka mid tahay caafimaadku ee ay ka mid tahay saldhigga booliska. haddii ay timada ay magaalada tan u baahan tahay oo wax loo qabanayo waxay u baahan tahay saldhig boolis, waxay u baahan tahay caafimaad, waxay u baahan tahay iskool dugsi sare. hadda may garatay waxay u baahan tahay haddii la idinkeeda arrimaha bulshada wixii loo oran jiray arrimaha bulshada wixii loo oran jiray may garatay waxaan waxa weeye arrimahaas oo dhan bay u baahan tahay aniga in wax looga qabto. Sarmaayo oo ah deegaan qadiimi ah oo ka tirsan gobolka Sool wuxuu magaalada Laascaanood u jiraa 180 kiiloomitir. xilligan la joogana deegaankani ma lahan xarumo caafimaad oo waaweyn sida cusbitaal iyo sidoo kale ma lahan xarumo boolis iyo dugsi sare, waxayna odayaasha deegaanku noo sheegeen arrimahaasi oo dhani in ay yihiin kuwa ay baahi weyn u qabaan. waa u baahannahay iskuulo, waa u baahannahay dugsiyo sare, waa u baahannahay laakiin waa leenahay waxbarasho ilaa gaadhsiisan ilaa 8aad. waana u baahannahay in loo dhiso dugsi sare. Puntland waxaanu ka codsanaynaa inay noo keenaan waxyaabaha aan uga baahannahay daruuriga ah ee bulshada waxtarka u leh
sida MCH-yada waxbarashada waxyaabaha biyaha ku saabsan oo biyo xidheennada ah caafimaadka booliska waxyaabo badan baan uga baahannahay wax allaale iyo wixii bulsho leedahay waa uga baahannahay Puntland aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaya hawshan meesha ka socotana hawshan meesha ka socoto oo ah in la sameeyo golo deegaan cid walba dambaa ugu jirta burbur baana dhacay burburkaasi dee laamiye ma aanan helin caafimaadkan xaq u lahayn ma aanan helin waxaasoo dhan wax inagaga maqan yihiin golo deegaan la'aan bay nagaga maqan yihiin waxaanu rabnaa aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa hawshatan tiimka isu soo xilqaamay iyo haddii la helayo dee districtga in loo sameeyo council jacfar macalin maxamed warbaahinta dowladda Puntland Sarmaayo.